Markabka Titanic waxa uu ahaa markabkii dunida ugu weynaa uguna qurux badnaa xilligii uu quusayay. Waxa uu ahaa magaalo dhan oo badda dhex maraysa. Laakiinse wax badan maysan sii jirin waxa ayna safarkeedii u horeysay bilowday 12 Abriil sanadii 1912. Waxa ayna quustay 4 maalin kadib. Waxa ay ahayd musiibo aad u weyn oo bilaabatay 14 ilaa 15 Abriil sanadii 1912. Waxa ku geeriyootay 1514 qofood oo ka mid ahayd 2223 qofood oo saarneyd markabkaas, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah doomaha badda ku quusay midii ugu khasaaraha badneyd. Waxaana ka mid ahaa dadka ku safrayay markabka dad maalqabeeno ah iyo boqolaal muhaajiriin oo u kala dhashay Ireland, Ingiriiska iyo Scandinavian-ka, kuwaas oo raadinayay in ay nolol ka fiican ay ka helaan waddanka Mareykanka. Markabka Titanic ayaa loo sameeyay si casri ah, isagoo lahaa qolol, xafiisyo, barxado ciyaaraha iyo swimming pool oo loogu talagalay dadka taajiriinta ah, halka dadka faqiirka ah aysan haysan adeegyada casriga ah. Markabka waxa uu lahaa heerka ugu sarreeya ee badqabka, hase yeeshee ma aysan wada dhammaystirnayn arrimaha looga wada baahnaa. Waayo waxaa saarnaa kaliya 178 jaakadood kaliya. Waxa ayna taas aad ugu yareed tirada dadka ku safrayay markabka gudihiisa. Safarkeedii waxa uu ka bilowday waddanka Ingiriiska, waxa ayna sii martay waddanka Faransiiska iyo Ireland, halkaas ayayna ka sii wadatay safarkeedii dhanka Mareykanka. Si dhaqsi ah ayuu safarkii ku dhammaaday maadaama markabka uu ku dhacay buur baraf ah. Waxa uuna sababay in markabka uu quuso oo uu badda galo muddo 2 saac iyo bar. Waxaa marka hore quusay qaybta hore ee markabka, taasoo kor u qaaday qaybta dambe ee markabka. Waxaana muddadaas looga faa'iideystay in dad badan lagu badbaadiyo doomaha yaryar. Musiibadan ayaa waxaa ku dhintay rag aad u badan, maadaama habka badbaadinta tahay in la hormariyo dumarka iyo carruurta. Ka hor 2 duhurnimo maalinkii xigay, markabkii ayaa 2 qaybood u kala jabay, iyadoo weli ay saaran yihiin boqolaal qofood dushiisa, halka dadkii badda isku tuuray ay qabow u dhinteen. Ilaa 709 qofood oo ay badbaadisay dooni soo agmartay. Quusitaanka markabka Titanic ayaa dadku ku riday murugo iyo caro, sababtoo ah dadka ku dhintay ayaa aad u tiro badnaa iyo qaladkii dhacay awgeed. Waxaana dhacday in ninkii lahaa markabka Titanic loogu waco dilaa, maadaama uu ahaa dadkii ugu horreeyay ee laga badbaadiyay markabka. Sidoo kale waxaana lagu tuhmayaa in uu ku amray kabtaankii in si xawaare dheereeya uu u wado si ay u gaaraan Mareykanka xilligii loogu talagalay ka hor, taas oo keentay in markabka uu ku dhaco buur baraf. Haraadigii Titanic oo la weysanaa muddo aad u dheer ayaa waxaa la helay 1 Sebtembar 1985, waxaana laga helay badda hoosteeda cabir dhan 3784 mitir. Helitaankan ayaa waxa uu suurageliyay in laga soo saaro alaabo badan oo lagu soo bandhigay madaxxafyada dunida ku yaala qaybo ka mid ah. Sida aan wada ognahay, markabka Titanic waxaa laga qoray buugaag badan iyo filimaan laga soo jilay, laakiinse waxaa jiro xaqiiqooyin badan oo aysan ogeyn dadka qaar.